بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaanu ku guda jirnaa course-ka aynu ugu magac darnay biology oo markaasi ah course aynu ku baranayno maadada biology-ga gaar ahaan fasalka form 4 ama fasalka afraad ee dugsiga sare waxaan maraynaa lesson 29 oo markaasi ah cashirka 29aad cashirkana waxaynu markaasi kaga hadli doonaa waa muscle movement of bones waa dhaqdhaqaaqa murqaha markaasi ay markaasi sameeyaan iyagoo kaashanaya murqaha ama lafaha ayaan markaasi cashirkan uga hadli doonaa waxaan filaa marka cashiradii 28 ahaa ayaynu hore u soo daawanay in si fiican loo fahmay haddii ay jiraan su'aalo ku saabsan 28kaas cashirna waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp inagala soo hadli kartaa ama email ay dina soo diri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto inaad su'aal inaga weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinkan ka jeediyay muuqaaladii hore ee 28 ah in la qaatay ama hadda kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in marka la raadiyo in gudaha u kala marka course-ku waa biology oo maadada biology-ga ama cilmiga biology-ga form 4 aynu ku baranayno fasalka afraad ee dugsiga sare lesson 29 waa cashirka 29aad muscular movement yani dhaqdhaqaaq muruqeedka ay ku sameeyaan boneska ayaan markaas uga hadli doona marka muscular movement of bones aynu markaasi si guud u sharaxno waxa la yiri musculoskeletal muscles murqo qalfoofeedyada intooda badan ileen muscleska waxaan u qaybinay saddex qaybood qaar waxa lagu magacaabaa skeletal muscles qaar waxa la yiraahdaa smooth muscles qaarna waxa la yiraahdaa cardiac muscle soo marka skeletal muscles oo markaasi qalfoofta markaasi murqaha ku dhagan intooda badan ayagu are arranged in waxay u habaysan yihiin opposite pair yani joog yani iska soo horjeedo yani qaab yani joog oo iska soo horjeedo ahaan ay markaas u habaysan yihiin oo waxa way pair ahaan ay yihiin joog way yani meel walba waxa laga helaa oo muruq laga helo waxa laga helaa pair ahaan loogu helaa waxaana loogu helaa as pair as waxa la yiraahdo opposite oo opposite ahaan loogu helaa yani si markaas iska soo horjeeda one muscle in a pair yani waxa waaye hal muruq oo markaasi joog ah oo labo markaasi ka samaysan movies waxa u dhaqaajiyaa limb yani waxa waaye idinka ama jilibka ama waxa waaye adinka ha ahaado upper ha ahaado ama lower ha ahaado wuxuu u dhaqaajiyaa in one direction hal jiho ayuu markaasi u dhaqaajiyaa soo marka joogan oo markaasi joogyada oo ay u habaysan yihiin skeletal muscleska labadooda mid waliba yani waxa way adimada inta badan murqaha waxa laga helaa adimada gaar ahaan skeletal muscles adimada ayaa laga helaa gacmaha iyo lugaha soo marka labadaas joog oo murqaha ah mid waliba oo markaasi kamid ah yani waxa way hal jiho ayuu markaasi u dhaqaajiya laftan the other muscle muruqa kale ee soo haray ilan joog wayan dhahnay mid kamid ah adinka ama jilibka ama maxay gacanta ayuu hal jiho markaas u dhaqaajiyaa other muscle marka muruqa kale ee soo harayna movies wuxuu u dhaqaajiyaa maxay opposite direction jiho ka soo horjeeda midda markaas hore tusaale hadii beerkan midka koowaad uu hore u dhaqaajiyay midka kale qaybta dambe in markaasi uu u dhaqaajiyo ay markaasi shaqadiisu ay tahay soo marka qaabka u habaysan yihiin ayaa waxay yihiin waa opposite pair ay markaasi u habaysan yihiin soo marka waxa la yiri muscleska marka murqaha marka ka hadlayno move dhaqaajiya bones dhaqaajiya by pulling them ayagoo markaasi riixayo yani skeleton ka riixayo not pushing them yani ma ahan inay soo jiidaan oo lafaha ay soo jiidaan macnaheedu ma ahan ayagu way riixan for example tusaale when biceps muscle waxa la yiraahdaa marka aad fiiriso elbowga qaybta ka sareysa ama bowdada gacanta oo gaar ahaan waxa waaye gacanta qaybteedii sare hadii aad fiiriso waxa waaye muruqa qaybta sare soo yaala ayaa waxa lagu magacaabaa biceps qaybta dambe kan yaalana waxa la yiraahdaa triceps ayaa marka loo yaqaan isagoo faahfaahsan oo sawir ah waa noo imaan doona soo marka waxa la yiri when the biceps marka bicepka oo muruqa hore ah oo muscle-kaasi ah muruqa yani waxa waaye ku jira bowdada qaybteeda hore ayaa lagu magacaabaa contraction uu sameeyo oo isku soo aruuro waxa waaye uu sameeyo yani waxa waaye contraction uu sameeyo waxa la yiri the elbow waxa waaye the elbow bends yani elbow ama xusulka marka uu soo qaloocdo bicepka oo muruqa markaasi sare ah wuxuu noqonaa mid isku soo aruuro iyo noqonaa the biceps muscle marka muruqan oo bicepka ah is known as sidoo kale waxa loo yaqaan flexor ayaa markaas loo yaqaan flexorka marka waxa la yiraahdaa a muscle waaye waa muruq that bends a joint kaasoo qaloociya muruqan marka uu qaloocdo
يعني waxa waaye in uu soo markaasi flexion uu sameeyo ayaa markaasi loo yaqaanaa flexor so marka waxa la yiri contractionka isku soo aruurida triceps waa qaybta dambe triceps muscle oo marka laga helo upper arm laga helo gacanta qaybteedii sare sidoo kale lugtana waa laga helaa strained the limb yani waxa markaasi marka la toosiyo gacanta markay toosan tahay yani waxa contraction ku dhacayo triceps ayaa markaasi contraction ku dhacayo way so marka waxa la yiri tricepka isaga tricep muscle is an example waxa uu tusaale u yahay extensor ama extensor yani waxaan dhahnay flexor iyo extensor ayaa markaasi jirta marka extension waxa way elbowgi in bending lagu sameeyo murqina contraction ay sameeyaan extensor yani sidii in markaas loo aliyo waxa la yiri extensor waa la sharxay marka waa a muscle waa muruq that strains a joint kaasoo markaasi toosinayo kala gooski yani toosinayo jointigi toosinayo marka la toosiyo kadib yani waxa waaye extensor ayaa markaasi dhacayo yani sidii hore ayuu markaasi u noqonaa to bring marka si loo keen about a smooth movement dhaqdhaqaaq oo markaasi smooth ah oo mid siman si markaasi loo keeno one muscle hal muruq oo in beer kamid ah joogan muruqa kamid ah must contract waa in markaasi uu isku soo aruura waa opposite marka kan halka kan kalena oo relaxation uu sameeyaa yani waxa way uu markaas fida yani marka la rabo in yani waxa way la keeno dhaqdhaqaaq yani labada muruq ee jooga mid sare ku yaala midna hoos ku yaala mid waa marka mid contraction uu sameeyo mid kale wuxuu sameeyaa relaxation ayuu markaasi uu sameeyaa so marka aynu fiirina marka figure-kan waxa way qaybtan oo kala hadwa flexor-ki waa qaybtii markaasi aan dhahaynay bicep-ka qaybtan dhahaynay tanina waxa way waa extensoriska qaybtan dhahaynay waxa la yiraahdaa quadriceps iyo sidoo kale hamstring waa lugta marka la joogo biceps iyo sidoo kale waxa kale lagu magacaabo qaybtan oo markaasi extensoriska waxa way triceps ayaa markaas lagu magacaabo so marka waxa la yiraahdaa qaybtan waxaan uga baxnay muscular movement of bones ayaan markaas uga baxnay waxa jira waxa la yiraahdaa slow twitch and fast twitch in nerve fiber yani waxa way muruqa qaabka uu shaqeeyo marka loo fiiriyo laba nooc ayaa loo qeybiyaa mid yani waxa way si waxa way slow si tartiib ah yani waxa way u sameysma iyo sidoo kale mid markaas si degdeg ah marka u sameeyana aynu fiirina marka waxa la yiri an isolated skeletal muscle muruqa ama muruqa foofeedka isolated ka yani meel gaar ah la geliyay can be studied waxa lagu darsi karaa ama lagu baran karaa by stimulating iyadoo la kicina it artificially yani si gacan ku sameys ah marka loo kiciyo ayaa markaasi la ogaan karaa yani la baran karaa way with electric shocks iyadoo marka la isticmaalayo waxyaabo qofka ka suuxiya oo koronto markaasi ka sameysan si artificial ah marka loo sameeyo waxa la ogaan karaa yani waxa way muruqaha isolated ay aan shaqeynaynin markaas yani waa markaasi waxay sameynayaan wax loo yaqaano waa isolation kii way ka baxayaan marka muscle marka stimulated with waxa lagu kiciyo maxay a single electric shock yani waxa way shock ama naxdin danabeed oo kaliya marka lagu kiciyo muruqa waxa way quickly contract si degdeg ah ayuu isku soo aruuraa and releases wuxuuna sii daaya in response jawaab celin ahaan wuxuu sii daaya waxa uu sii daayo yani jawaab celintaas isaga ka baxda marka electric shock loo isticmaalo waxa la yiraahdaa twitch ayaa markaas loogu magacaaba so marka waxa la yiraahdaa skeletal muscle fibers marka aan ka hadlayno leel muruqa foofeedka marka aan ka hadlayno isaga can be divided waxa loo qeybiyaa on basis of iyadoo sal looga dhigayo their contraction isku imaanshahooda iyadoo sal looga dhigayo skeletal muscle fibers waxa loo qeybiyaa laba qaybood kuwaas oo kala ah yani contraction kooda kuwa contraction kooda slow uu yahay slow twitch muscle fibers ay leedahay kuwa kalena contraction kooda ama isku soo aruuridooda ay degdeg ay tahay kuwaasna waxa la yiraahdaa fast twitch muscle fibers ay marka lagu magacaabo waxa la yiri the muscles murqaha that move the eyes dhaqaajiya indhaha for example tusaalahan murqaha markaas indhaha dhaqaajiya half waxay leeyihiin high proportion ay leeyihiin yani waxa waaye saami badan oo fast twitch fibers ay leeyihiin yani waxa waaye contraction kooda aad buu markaas u sareeyaa and each maximum tension mid waliba shaqadiisana waxay markaas gaari kartaa waa 7.3 millisecond yani waxa waaye sekimo oo la sii qeybiyay yani hal second waxaan dhameyn millisecond ayuu
markaasi ay yeelan karaan marka waxa waaye shaqadoodii ama contractionkooda ama inay isku yimaadaan murqaha inta indhaha laga helo waa markaasi waxay yihiin waa fast twitch nerve ama fast twitch fibers way waxayna ka yihiin noocyada skeletal muscle fiberska waa fast twitch fibers markaasi ay ka yihiin so marka waxa la yiri the soleus muscle in leg murqaha markaas laga helo lugaha by contrast ka duwan sidii hadda oo kale haas waxay leeyihiin high proportion ay leeyihiin saami badan oo slow ay leeyihiin oo slow twitch fiber ah requires waxay u baahan tahay 100 millisecond ay u baahan tahay msecond to reach loo gaaro maxay maximum tension yani waxa waaye ficilka ugu weyn si loo gaaro 100 millisecond ayaa markaas loo baahan kuwa waxa waaye murqaha markaas laga helo lugaha markaas laga helo laakiin kuwa indhaha laga helo waxa waaye waxaway fast twitch fiber way waxayna u baahan yihiin maxay 7.3 millisecond ayaa marka loo baahan yahay so marka the calf muscle waxa la yiraahdaa ayaa jira isaga intermediate way yani dhaxeeyo way in its composition marka laga hadlayo waxa uu marka ka sameeysan yihiin marka laga hadlayo waxa waaye yani waxa waaye waxa loo yaqaano intermediate yani mid isku xiraa ah way mar wuxuu noqonaa fast iyo noqonaa marna wuxuu noqonaa slow iyo markaas noqonaa way so marka slow twitch fibers half waxay leeyihiin a rich capillary supply yani waxa waaye waxa ka buuxa maxay oo ay qani ku yihiin tiftaafayaal ayaa ka buuxa slow twitch fibers ilaa laban u soo qeybinay skeletal muscle fiberska twitch waxaan dhahnay slow twitch muscle fiber iyo fast twitch muscle fiber so marka slow twitch muscle fiberka ayagu waxay leeyihiin capillaries badan ay leeyihiin sidoo kale waxay leeyihiin numerous mitochondria ay leeyihiin tiro badan oo tamar dhaliye ay markaas leeyihiin an aerobic an sidoo kale waxay leeyihiin aerobic respiratory enzymes dheecaano burburiyayaal ah oo neefta qaabilsan kuwaaso yani wax markaas aan u baahnayn wax la yiraahdo maxay hawo aan oxygen aan u baahnayn and high concentration sidoo kale waxay leeyihiin saami aad u sareeyo oo myoglobin pigment ah midabeeyo oo la yiraahdo myoglobin ay markaas iyagu ay leeyihiin ama laakiin kuwaas kale ee soo horay ee ah fast twitch fibers kuwa la yiraahdo half waxay leeyihiin fewer capillaries ayaga tiftaafayaasha laga helo markaas way yar yihiin and mitochondria laga helana way ka yar yihiin marka dan loo fiiriyo slow twitch fibers marka loo fiiriyo and not much kumana badna waxa la yiraahdo myoglobin kuma badna fast twitch fibers marka laga hadlayo can respire anaerobically waxay noqon karaan ama ay u neefsan karaan anaerobically ahaan yani qaab iyagoo aan oxygen u baahnayn by using iyagoo isticmaalayo waxa la yiraahdo maxay large store yani kate aad u badan oo glycogen ah and high concentrations iyo markaas sareen aad u sareysa oo glycolytic enzymes dheecaano burburiyayaal ah oo glycolytic ah ay markaas u baahan yihiin waxaan filayaa markan casharkan si fiican loo fahmay markan aan imaano question soo su'aal casharka su'aashooda waxay ku leedahay how most skeletal muscles are arranged sidee markaas ay u habaysan yihiin skeletal muscles intooda badan biceps and triceps also known as mid waliba magac kale loo yaqaan oo for mid waxa loo yaqaan maxay extensor midna magac kale loo yaqaan soo marka mid waliba waxa loo yaqaan sheeg soo saddexaad waxa skeletal muscle fiberska can be divided waxa loo qaybiyaa into laba loo qaybiyaa kala sheeg su'aasha afraad waxay ku leedahay how much the maximum tension why is maximum tension ka oo slow twitch muscle fibers iyo sidoo kale fast twitch muscle fiberska mid walba maximum kiisa sheeg ayaa leeyahay adigoo markaa raacinaya millisecond waxaan filayaa markan casharkan si fiican loo fahmay intaynu ku soo gabagabeynayna casharkana intaynu ku kulmi doono casharkan casharka xiga waxaan idin kaga tegaynaa sida nabadino wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh